waxaan soo bandhignay bay ahayd waxqabadkii 4 bilood ee lasoo dhaafay 4 bilood ee lasoo dhaafay dakhligii aan soo ururinay iyo dakhligii aan qabsoomin aanan soo ururin 4 bilood ee loo baahan yahay in laga daba tago isla markaana la soo ururiyo waxaan soo diyaarinay bay ahayd qorshe degdeg ah oo 2 bilood ee soo socda hidaar iyo taxaas aan ku hawlgalino isla markaana aan ugu talagalnay nidaam olole ah oo kaabineyga deegaanku ay ka qayb qaadanayaan oo goboladii ay u kala baxayaan isla markaana ay soo ururin doonaan dakhligii 4 bilood naga baaqday iyo dakhligani 2 bilood ee bisha hidaar iyo taxaas isla markaana waa qorshe aad u ballaaran oo run ahaantii dakhli badan aanu ku soo ururin doono qorshaha waxaan ugu talagalnay in gobolka wacyigelin ugu horeynta laga sameeyo isla markaana degmooyinkii iyo maamul magaalooyinkii nidaam olole ah dakhligii baaqday 4 bilood iyo bisha hidaar iyo taxaas lagu soo ururiyo isla markaana taxaas ka bacdi dib inta loo fadhiisto warbixinta 6 bilood la qiimeeyo oo aanu rajaynayno run ahaantii deficit-kan la galay in qorshahani uu naga saari doono isla markaana gobolada iyo degmooyinkuna ay xubnaha kaabineyga ee imanaya iyo waxa la socda agaasimadii xafiiska oo iyaguna qayb ka ah ololahani in ay wax badan ay ka bedeli doonaan nidaamkeena dakhli ururinta ee 2 bilood ee soo socda taas ayaanu rajo weyn ka qabnaa run ahaantii 4 bilood ee lasoo dhaafay dakhliga aanu soo ururinay waxa weeyaan waa 4 bilyan iyo waxoogaa dakhliga noo laga baahnaana wuxuu ahaa 5 bilyan iyo waxoogaa dakhliya ayaa naga ayuu ahaa in la soo ururiyo run ahaantii dakhliga baaqdayna waxa weeyaan 1 bilyan dhibic 1.2 ayuu ahaa taasina waxay cadaynaysaa in halka dakhli aad u badani uu baaqday marka boqolleyda loo bedelana deegaanku percentage-ka uu marayo waxa weeyaan waa boqolkiiba 75 run ahaantii marka dhinaca laga eego 25% oo dakhliya ayaa deegaan ahaan baaqday baan odhan karnaa isla markaana qorshahani waxaan u diyaarinay 25% dakhliga baaqday 4 bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshahani hidaar iyo taxaas sida ugu dhaqsaha badan in kaabineyga deegaanku ayaguna qayb ay ka noqdaan oo xafiiskii dakhliga iyagoo taageeraya ay naga caawiyaan run ahaantii xukuumaddu waqti xadirkani waxay dadaal aad u ballaaran ugu jirtaa sidii dakhliga deegaanka kor loogu qaadi lahaa isla markaana deegaankeenu noqon lahaa deegaan dakhligii uu qorshaystay soo saaro qorshaheena fogna waxa weeyaan in deegaankeenu uu kharashka uu bixinayo nidaamka dowladnimadeenu u baahan yahay lagu daboolo dakhliga deegaankiina laga soo saarayo taasina waxay ka dhigan tahay inagu inaanu isku filnaano oo cidnaanan waxba uga baahanin horumarka iyo nidaamkeena dowladnimadaba wixii aanu qabanayna inagu in dakhligeena lagu qabto si taa loo gaadho waxa lagama maarmaan had iyo jeer in kaabineyga deegaanku ay ogaadaan bal xaaladda iyo nidaamkeena dakhli ururinta siduu yahay wixii taageeray ay ka geysan karaan ay ka geystaan qorshahaasi wixii galdololooyina ee ka soo baxana si guud inta loo eego isla markaana qorshe cusub la qaato galdololooyinka sidii loo xallin lahaa qorshe la qaato ayaa loo baahan yahay taa iyadoo annaguna aanu ka duulano ayaanu qorshahani degdega ee 2 bilood nidaam ololaha dakhliga lagu soo ururinayo aanu qaadanay run ahaantii waa qorshe aad u ballaaran oo marka dhinaca dakhliga laga eego 2 bilood gudaheed wixii rubicii deegaanka u qorshaysnaa in 2 bilood gudaheed lagu soo ururiyo qorshahan loo qaatay rubicii lasoo dhaafay qorshaha iyagu 4 bilyan buu ahaa 2 biloodna dakhliga in lasoo ururiyo aanu rabno waxa weeyaan waa 4 bilyan dhibic 3 weeyaan isla markaa waxaanu odhan karnaa waa hawl aad u muhiima
qorshahaanna dakhli badan lagu soo ururinayo bulshadiina in la gaadho dakhliga lagu wacyigeliyo loo baahan yahay xubnaha kaabineguna ay ka mid yihiin oo hawshaasi ay soo fulinayaan islamarkaa maanta waxaan odhan karnaa ka nidaam dowladeed ahaan guul aad u weyn ayaanu gaadhnay oo waxay caddaynaysaa arrintaasi in nidaamkii dowladnimadeenu uu adkaaday aanu qaan gaadhnay islamarkaana waqti xaadirkani howlo badan oo muhiima deegaankeena ay ka socdaan dadaaladeedii lagu jira ayay tilmaamaysaa arrimahaasi marka waxaan anigu shakhsiyan aan aaminsanahay qorshahani dakhliga ka soo kow in nidaamkeena dowladnimada laftigeega uu guul u yahay waa markii ugu horreysay ee deegaankeena ay ka dhacdo xubno kaabineeya in ay gobolada iyo degmooyinka inta ay u dhaadhacaan nidaamka dakhli ururinta ama ololaha dakhli ururinta ay qayb ka noqdaan bulshadeennii ay gaadhaan ay ka wacyigeliyaan dakhligu faa'iidada uu leeyahay iyo horumarka deegaankeena ka socda waxaa lagu fulinayaa inuu yahay dakhligan iyaga laga qaadayo jeebkooga laga qaadayo islamarkaana iyagii lagu soo celinayo inuu yahay waxaan qorshahan soo bandhignay wuxuu ahaa qorshe ololo ah oo dakhliga lagu dardargelinayo qorshahaasi wuxuu ka koobnaa 4 qaybood qaybta koobaadi waxay ahayd in indhayn lagu sameeyo deegaanka guud iyo qorshihiisa iyo howlihiisa qaybta labaadina waxay ahayd 4tii bilood ee lasoo dhaafay xaaladda dakhli ururineed ee deegaanku halkuu ku sugan yahay halkuu maraya qaybta afraadna waxay ahayd nidaamkii aanu ku dhaqangelin lahayn ama aan ku howlgeli lahayn ama istaraatiijiyadii dakhligii baaqday iyo dakhliga labada bilood ee soo socda lagu ururin lahaa qaybta afraadna waxay ahayd nidaamka dabagalka iyo qiimeynta uu noqonayo islamarkaana qiimeynta aanu diyaarinay waxa kow ka ahaa in color grading qiimeyntu ay lahaan doonto ololahani aanu qorsheynay marka uu dhammaado insha allah natiijadiisa la qiimeynayo in color grading uu lahaanayo qorshaheenna waxaanu u qaybinay bay ahayd qorshahaasi xubnaha kabinega gaadha 100 iyo wixii ka sareeya in kalarka ay qaadanayaan uu yahay kalar cagaara wixii 100 ka hooseeya ilaa 70na ay noqonayaan huruud kalarka ay qaadanayaan wixii 70 ka hooseeyana uu yahay casaan ama qorshihii laguma guuleysanin qaabka ayuu markaa qiimeyntu ay u yeelan doontaa color grading funaanado tusaale ahaan aanu soo daabacnay baa jiro kabinega aanu horkeennay oo kalarkaa ku salaysan mid kastaana wuxuu caddaynayaa ninkii qorshaha ku guuleystay marka ay hawshani dhammaato kii dhexdhexaadkaana uu caddaynaya iyo kii aan ku guuleysaninba marka qaab sidaasa ayaanuu soo diyaarinay waxaa la odhan karaa qorshahani waa mid bilow ilaa dhammaad qiimeyn iyo daba socod hogaaminta u sarreysay deegaanku ay samayn doonaan